السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعمرك وهريش مهد له إلهي بمهد له وعمهد كلا دتك حفلة عن قروح ضبضن له وآتك وهر سريش شو أبابلي يعني مهد الله بعد إشكاله وأنا هل كان عن سكون نمي تاجري ده أنا تاجرينه مشارحات حلوانات مريم اسمها فنقشي إلهي waxaan ka rajeynaynaa inuu ilaahay u fududeeyo waxay hadaan taariikhda dib ugu noqdo Soomaalida taariikhdeeda waxa ay ka soo bilaabatay dadka hadaan fungash ahaan aan ka soo qaato waxa uu ahaa dadkii Soomaaliyeed dhaqdhaqaaqii xorriyadda iyo ka soo qayb qaatay waa dareemaysaa البحنمة يحضارة وكلها مال كستا أيه كقرنتهاي مال كستا أيه لوجهها وحنا مري كسو جدا فاميلي أسبي كسو جدا يدنا واقف متعلمة وحضرتي مدبضا ينادي شيء وشقين شيء وحبضا كسو كل شيء دلك يدتك وحقبت كذا على أركي أنت سدان وجود بتاريخ في نورلي وقومنا وحان أشوف جيسنا حالة ما أنت كتاجن أنا بقول هلا ما قاعد بالوين تأمان غير يوروب وحان تاجر وين أنا هنا مشرحات مرين عثمان أنا بقول كارنت أيك قادن كرتو دلك جديشة gobolka ay ka soo jeedo hadii qofka uu gobolku ka soo jeedo wuxuu qabto Puntland waxba uu qabanayaa qofka Puntland wuxuu qabtana Soomaaliya wuxuu qabanayaa taasna waxa cadeynaya iyadoo cidna aan xil iska saarin ayaa waxay hamigeedu u gaarsiiyay inay aqalka sare isku soo sharaxdo hadii la isku soo sharaxana ee qofun baa ku guuleysanaya waxaan rajaynaynaa hadda waxay isku soo sharaxday xildhibaanada wakiilada Puntland aad ayaan u faraxsanahay aan ugu rajaynaynaa inay ku guuleysato waxaan kaloo halkaan aan uga soo jeedinayaa taageero fara badan oo hayaan dadka reer Yurub ee ammaan leh aad ayaan u taageeraynaa maadaama aan ognahay wax qabadkeeda iyo waxtarkeeda iyo wax soo saarkeeda waxaan kaloo halkan aan bayaan aad si xooga aan u taageeraynaa hadaan nahay beelweynta amaanle ay reer Yurub bayaankii ay soo saareen aqoon-yahanada reerka meel kasta ay joogaan kaasoo sheegaya in xilligan uu yahay xilli qof aqoon leh loo baahan yahay maadaama aqoontii wax badan ay dadka iyo aqliga ku soo kordhinayso waxay go'aan ku gaareen in xilka waqtigan qof aqoon leh uu helo marina aqoonteeda iyo wax qabadkeeda iyo taariikhdeeda inta boorognahay annagoo dhan waa wada taageersanahay waxaan kaloo aan aad u rabaa inaan uga hadlo oo cod dheer iyo cod gaaban aan ugu sheegaynaa dhaqamada reerka nabadoon hadduu noqdo caaqil hadduu noqdo ugaash hadduu noqdo suldaan hadduu noqdo annaga danteena waxa ay ku jirtaa qof aqoon leh oo dadka iyo dalka wax u qaban kara waxaan idinka codsanaynaa oo idinka baryaynaa in ilaahay uu idin waafajiyo sida xaqa uu ku jiro oo ah qof dadka iyo dalka iyo diinta wax u taraay inaad codkiina aad gaarsiisaan marka odayaasha waxaan ku boorinaynaa dadka mutacalimiinta ah in ay kala tashadaan wixii danta dalka ku jirto waxaan kaloo ku ganaanadayaa hadalkayga idinkoo fiirinaya tixgelinaya waxa xaaladdu sida ay tahay waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaad taageero weynsiisaan Maryan Cismaan taasoo aan uga dan leeyahay xilligan waxaa jirta koontadii gabdhaha 20 sano
labaatan sano ayaa rag soo fadhiyey xaqna waxay u leeyihiin markooda inay helaan waayo waddanka waxa ay ka soo qabteen iyo dadka waxay u tireen iyo qoysaska wax u tireen cid walba ogtay